waxaan maanta ku soo qaadan doonaa mahmaahda odhanaysaa hadal ninna si u yiri ninna si u qaaday. waxaa kaloo la yidhaahdaa hadal waa margiyoo kale oo hadba meel u jiidma. margigu waa seed inta badan geela ayaa laga helaa, marka kolba meel u jiidma. haddaad isku soo dhaweysana wuu isku soo dhaw, haddii aad jiidana wuu jiidmaya ama meel loo duwi karo kolley. marka murtidan macnaha guud baan sheegi doonaa, murtida haddana sheeko ay leedahayna waan sheegi doonaa. waxay leedahay markaa hadal nin si uu yiri nina si uu qaaday. waxaa laga yaabaa hadal si adigu aad u waddo wanaag aad u waddo qof kale qoonsimaadba inuu u qaato oo qallooc u qaato, inaad si kale u jeedood u duur xulayso inuu u qaato. waxaa laga yaabaa hadal adigu guubaaba kaa ah ood qof ku guubaabanayso. maxaa yeele qofka marka la guubaabinayo waa la caayaa, waa la canaantaa, waa la dhaliilaa. hadal adigu sidaa kaa ah ayaa waxaa laga yaabaa inuu markaa qofkii uu ka xumaadaba, qofkii uu ka xumaado oo dagaalba markaa inuu kula gacanka hadal uu kula galaba ay u dhowaato. maxaa yeelay waanada waxaa la yidhaahdaa qofka diraca ana waa u ammaan, qofka doqonkana waa u cay. waxaa kaloo laga yaabaa soomaalida hadal nin si u yiri nina si u qaaday ay ahaan jirtay. soomaalida beriga hore qoraal may lahaan jirin, farta qoraal